diinta islaamka waxay Soomaaliya soo gaadhay qarnigii 7aad ama ka hor intii Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uusan u haajirin magaalada Madiina. Imaatinka islaamku waxa uu wax weyn ka bedelay noloshii dadka, waxa uu saameeyay ama qayb ahaan wax ka bedelay qaabka iyo fikirkii dadweynaha. Professor Maxamed Mukhtaar waxa uu cilmiga taariikhda Carabta iyo Afrika ka dhigaa Jaamacadda Savannah University ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka. waxaan ka warqabnaa masalan dadyoogii caabudi jiray diimo kale ama waxyaabo kale caabudi jiray ayaa waxaa la odhanayaa hadda maanta diintii intaad amaani lahayday ama u gabyi lahayday ilaah aan jirin waxaad amaanaysaa maanta masalan ilaah oo la yidhaahdo allah iyo masalan nebi la yidhahdo maxamed intaad gabar amaani lahayd waxaa jiri jiray dagaalo iyo maxaa yidhahdaa isqaqabsi fara badan nabad bay keentay yani diintu ilan waxay tilmaamaysa wax nabad la yidhaahdo midda kale dhaqaale ahaan masalan dhaqaaluhu waayadii hore intuusan islaamka soo gaarin waxaa jiri jiray dadyow oo maaragtay masaakiinta ka faa'iidaysan jiray intay deeman siiyaan ama intay wax amaahiyaan oo ku qaaliyeyn jiray markii dambe islaamkii wuxuu la imaanaya wax la yidhahdo riba waxyaabahaas qaarkood ma anfacayso way jeclay dadka muhaajiriinta muslimiinta ah ee yimid Abasiiniya waxay horseeday inay Itoobiya ka aasaasmaan dawlado yaryar oo qaarkood ay qaateen diinta islaamka inkastoo inta badan dadkaasi ay sii haysteen diinta kiristaanka iyo diimo kale. Muuse Sheekh Xariir waa suxufi iyo taariikh ururiye ku nool magaalada Jigjiga. Waxa uu iga warramay soo bixidii dawladaha yaryar ee islaamka ahaa iyo sida xiriirka saldanadaha islaamiga ah iyo boqortooyadii Abasiiniya uu u xumaaday. waxaa Itoobiya ka abuurmay saldanado fara badan oo islaami ah oo ay ka mid tahay saldanada la oran jiray Ifat, Dawaro, Arbabini, Hadiya, Shakara, Bali, Dara, Shawa, saldanado fara badan oo noocaas ah baa ka abuurmay Itoobiya dhexdeeda. Itoobiya diinta islaamka aad ugu faafisay. taariikhdu qiyaasihii markay ahayd 1270 Itoobiya waxaa ka samaysmay boqortooyo oo aasaasay nin la yiraahdo Yakuna Amlak, boqor la oran jiray uu aasaas u ahaa baa yaa abuurantay oo markii dambe uu sii waday soo gaadhay xilli uu nin xoog badnaayo Amdasiyon la yiraahdo oo boqor dagaalyahan ah oo maxay ahayd dagaal ku qaaday saldanadihii kala duwanaa ee islaamka ahaa Itoobiya ku yeelay taariikhdii 1314 ilaa 1344 saldanadihii islaamiga ahaa qaar badan oo kamid ah buu jabiyay oo dhibaato waaweyn u geystay. halkaas ama taqaanaa ay sheekadii nabadda lagu wada noolaaye ay Itoobiyana soo dhaweysay islaamka ay isu bedeshay colaad. boqortooyadii Abasiiniya waxay qarnigii 14aad lacaga juzye ah ama canshuuraha ku soo rogeen gobollo iyo saldanado yaryar oo muslimiin ahaa. lacagaha laga qaada dawladaha yaryar waxay huriyeen cadaawad hor leh. dagaalada ugu xusuusta iyo khasaaraha weynaa ee Abasiiniya ka dhacay waxay ahaayeen kuwii uu waday mid ka mid ah hogaamiyaasha islaamka ee geeska Afrika ugu caansanaa. waa dagaaladii Axmed bin Ibrahim Al-Ghazi oo ku magac dheera Axmed Gurey. Dr. Maxamed Xasan Cali waa aqoonyahan u dhashay Itoobiya kana soo jeeda magaalada Harar. xilligan waxa uu macallin taariikhda dhiga ka yahay Jaamacadda Georgia State University ee magaalada Atlanta. Imam Ahmed, a man who was born in 1506, received basic Islamic education. He was a born military commander. He was trained as a cavalry. imaam axmed imaamku waxa uu dhashay sanadkii 1506 waxa uu qaatay waxbarashada aasaasiga ee islaamka. waxa uu ahaa nin u dhashay taliyanimada militariga. waxa uu ahaa sarkaal ku dagaalama fardaha, darajana ka gaadhay. aad buu geesi u ahaa, waxana uu ahaa codkar. waxaa la yaab leh inuu fahmay fanka dagaalka. waxa uu qiimayn jiray anshaxa, tababarka iyo inuu ciidankiisa ku qanciyo inay qadiyadda u taagan yahay ay nafta u huraan. waxa uu hogaaminayay ciidanka ugu fiican ee gobolka. ciidankiisu waxay ahaayeen kuwo tiro yar, hase yeeshee waxay ka guulaysteen ciidamo badan. waxaa ciidankiisa isku hayay islaamnimada. isagoo wata 12,000 oo askari ayuu sanadkii 1529 imaam axmed ka guulaystay ciidamo kiristaan ah oo 10 jeer ka badnaa. sababtuna waxay ahayd mid sahlan. mar walba waxa uu ururin jiray macluumaadka cadowgiisa, xogtiisa, meesha ay daciifka ka yihiin iyo meesha laga weerari karo. waxa uu dhisay boqortooyadii muslimka ahayd ee ugu horreysay uguna dambaysay Itoobiya inkastoo ay muddo kooban jirtay. khilaafka u dhexeeya boqortooyadii Abasiiniya iyo Axmed Gurey waxa uu caalamiyeeyay khilaafkii geeska Afrika
iyadoo dhinaca abasiiniya ay u soo gurmatay mid ka mid ah labadii dowladood ee xilliga ugu awoodda weynaa caalamka oo ahayd Boortaqiiska, halka dhinaca Axmed Gureyna uu taageero ka helay dowladdii islaamka xilligaas ugu xoogganayd oo ahayd Turkiga. Fasiraado kala duwan ayaa laga bixiyaa sida dagaalku uu ku bilowday, waxaase ugu weynaa sida aqoon-yahanadu ay sheegeen juzyada ama khidmooyinka boqortooyada abasiiniya ay ka qaadi jirtay saldanadii Awdal iyo saldanooyin kale oo yaryar oo muslim ahaa. waxaa kaloo qayb ka ahaa fidinta diinta. waxaa kaloo meesha ku jirta in loo tartamayey gacan ku haynta halbowlayaasha ganacsiga badda cas. aqoon-yahan muuse sheeka xariir ayaa inoo sharaxaya sida colaaddii ugu horreysay ay ku bilaabantay. dagaaladaas muddo iyagii oo soo socday ayaa nin ka ahaa amiir amase waaligii magaalada Zaylac xukumay oo Maxfuud la odhan jiray yaa duulaan ku qaaday. ciidan buu la baxay, wuu la soo dagaalamay. Ethiopia markaa xaggan xabashida nin la yidhaahdo Hussein Libnadingil baa xukumay oo boqor ka ahaa. halkaasuu duulaan buu kusoo qaaday, isagii oo kasoo noqonaya oo dhexda kusoo jira yay dhexda u galeen, markaasay dileen. Maxfuud bay halkaa ku dileen. Maxfuud markuu dhintay waxoogaa buuq iyo qas baa ka dhacay arligii. waa la isku qabqabsaday ciddii qaban lahayd booskiisii. Axmed Gurey baa markaa soo galay sheekadan, isaguna soo galay. ninkii u dambeeyey buu intuu dilay, taariikhdu markay ahayd 1527 yuu ku guulaystay isagu inuu markaa xukunkii qabsado. wax yar kadib, 2 sannadood kadibna dagaal buu isagu naftiisii ku qaaday oo weerar buu qaaday isagoo Maxfuudna usoo aargudaya. Maxfuudka naftigiisa ninkaa la dilay ee amiirka ahaana gabadhiisa oo gabadh iyaduna caan ahayd oo dagaalada aada uga qayb gashay oo la odhan jiray mataqaanaa bati Wambara yuu qabay ninka la yidhaahdo Axmed Gurey oo xaaskiisa ahayd. mararka qaarkood taariikhaha qaarkood xagga xabashida iyo waxay yidhaahdaan gabadhaas bati Wambara baa maxay ahayd ku tirtirsaday aabahay adoon usoo aargudin baad maxay ahayd aniga aad qabaysaa bay ku dacaayadeeyaan. laakiin si ay ahaydba weerarka Axmed Gurey 2 sannadood markuu xukunka hayay buu 1529 buu qaaday weerar ku qaaday Ethiopia. marka isaga iyo Libnadingil maxaa kala gaaray? waa sanadkee xilligan ka hadlayna hadda dagaalada ugu culus ay dhacayaan? waqtiyada ugu sii darani waxa weeyaan meel la yidhaahdo Ambasel oo ku taala gobolka Tigray 1531 yay dagaal isku heleen. halkaasuu maxay ahayday ciidamadii Ethiopia, ciidamadii Habashiiniya iyo halkaasi adag ugu jabiyey. waa waqtigaa marka Libnadingil iyo mataqaanaa waqtiga maxay ahayday uu jabka weyn gaadhayo ee uu ku dhimanayo, uu dagaalkii ku dhimanayo. markii ay sidaa u jabeen dhibaatadaasu gaadhay waa waqtigaa deedna maxay ahayday marka ay Boortaqiiskii kaalmo weydiisanayaan oo uu isaguna soo dirayo ciidan xoog badan oo 1541 soo gaadhay isagii oo wato nin la yidhaahdo Christopher da Gama oo adeer u ahaa ninkii taariikhiga ahaa ee Vasco da Gama la odhan jiray ee sahamiyey wadadan badda ee kasoo wareegta xagga iyo koonfurta Africa ee India iyo xagga sahamiyaha u ahaa. ninkaasa ninuu adeer u ahaa oo la odhan jiray Christopher da Gama baa ciidamada watay oo kasoo degay Musawac, ciidan xoog badan oo qoriyo wata. waa gartay. marka goormuu soo jabay Axmed Gurey? dagaalka dhabtii wuxuu dhacay 4 bisha April 1542 ayuu dagaalkii u horreeyay dhacay. dagaalka isaga ah Axmed Gurey waa dhaawac yar baa gaadhay oo lugta bay xabadi kaga dhacday. xabadu wiifta ah oo iska socota oo xabadihii ay soo ridayeen Boortaqiisku baa lugta kaga dhacday. aakhritaankii ninkii la odhan jiray Christopher da Gama iyo ciidamo fara badan oo la socda inta la qabtay yaa la dilay oo halkaa ay ku dhinteen. maxaa xigay marka dagaaladaas culus? dagaal dambe iyo waxay soo qaaday qoladii xabashida ahayd. nin boqorkoodii la odhan jiray Claudius baa yaa weerar hor la soo qaaday. qoladii Axmed Gurey iyo muslimiintii iyo ciidamadii Soomaalida u badnaa mataqaanaa way isyara dhigteen. deedna maxay ahayday bishii February 1543 dagaal weyn oo meel la yidhaahdo Weynadega
weyne dhagaabaa ay qoraan nimanka la yidhaahdo mu'arikhiinta waagaas khaasatan Boortaqiiskii magaaladan Baxardaar la yidhaahdo imika caasimada Axmaarada ah meelo lagu qiyaasay inay koonfur bari ka xigtay baa maxay ahayday yaa lagu sheegaa in meel dagaaladu ay ka dhaceen dagaalka u dambeeyay oo deedna maxay ahayday imaam Axmed Gurey lagu dilay waxaa la yidhaahdaa taariikhaha qaarkood ay qoraan nin askartii Boortaqiiska ah oo doonaya inuu u aaro janankoodii Christopher Dagama ahaa watay hore loo dilay yaa soo weerar keligii isagoo ah weerar ku qaaday bay yidhaahdaan intuu meel ka arkay Axmed Gurey oo taagan meel fog kolkaasuu halkaa intuu ka shiishay buu dilay bay sheegaan isagana halkii baa lagu dilay dad kale waxay yidhahdaan nin dhaawaca buu ahaa oo ciidamadii isagoo dhex marmaraya dhaawacyadii iyo goobtii dagaalka imaam Axmed Gurey buu ninkan dilay ninkan Boortaqiiskii xabad ku riday uu dilay intuu gartay inuu yahay amiirkii si ay ahayd ba adigu dagaalkaas waqtigaa isaga ah bishii February 1543 dagaal ku dhintay Axmed Gurey. ciidamadii uu Axmed Gurey watay xilligaas waxay ka koobnaayeen badankoodu ciidamada fartaha ku dagaalama waxayna ka soo jeedeen deegaano kala duwan oo xilligan ka tirsan Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba waxa kale oo iyadana fasiraado kala duwan laga bixiyaa imaam Axmed Gurey inuu ahaa Soomaali iyo inuu ahaa Itoobiyaan aqoon-yahanada Soomaalidu waxay sheegeen inay aaminsan yihiin Axmed bin Ibrahim al-Ghazi inuu ahaa Soomaali iyagoo haddana aan cadayma soo bandhigin hase yeeshee adeegsanaya tilmaamo istiraatiijiyadda uu isticmaalayay iyo ciidanka la socday Professor Maxamed Cabdi Gaandi waa taariikhyahan isla markaana ku takhasusay cilmiga barashada bulshooyinka iyo dhaqamada waxa uu isagu ku sifeynaya Axmed Gurey inuu ahaa hogaamiye islaami ah Axmed Gurey Itoobiyaan ma ahayn walaatay laakiin wuxuu ahaa anu aragtidayda maadaama controversial sheekooyinka ay badan yihiin oo meelo fara badan la saarayo waxa uu ila quman aniga maaragtay Axmed Gurey inuu u ekaado inuu ahaa nin islaam ah oo deegaanka ku nool oo halkaa ku dhashay oo ciqaabtii iyo bareesharkii ay ku haysay boqortooyada Itoobiya deegaanada islaamka ka gilgishay dadka dagaalayay oo halkaa ka dagaalayay qabaa'ilka Soomaaliyeed oo ciidamadiisa oo la dagaalgalayay 11 qabiilo Soomaaliyeed oo qabaa'ilka hadda nool ay ku jiraan oo hadda Soomaaliya ku nool ay ka mid ahaayeen marka waa nin Soomaalina isu dumay dadka islaamka geeska Afrika isu dumay marka anu waxaan qabaa 88% haddii la yiraahdo Itoobiyaan buu ahaa mise Soomaali ahaa Soomaali buu ahaa Professor Maxamed Mukhtaar oo taariikhda ka dhiga jaamacadda Savannah State University waxa uu leeyahay marka adeegtid dhaqanka iyo istiraatiijiyada siyaasadeed ee Axmed Gurey uu adeegsanayay inay u ekayd tan ay ilaa haatan adeegsadaan hogaamiyaasha siyaasadeed ee Soomaalida ilaa xilligan aan joogno inuu Soomaali ahaa waxaan ku tuhmayaa fikirkiisa siyaasiga ayaa markaan eegay wuxuu ila eg yahay fikrada siyaasiyiinta Soomaaliya ilaa maanta ay qabaan oo ah qofka Soomaaliga waa iska caadifi bisel siyaasi oo adag markii uu go'aan la gaarayo ma sameeyo Axmed Gurey Harunow yani muddo yar 1525 ilaa 1543 wax yar been ayuu wuxuu ku qabsaday geeska Afrika oo dhan buu islaamiyay oo wuxuu jibiyay isbahaysi Xabashi iyo Portugiis ah ayuu jibiyay guulahaas markuu keenay ayaa waxaa usoo baxday trow maadaama aad guulaysatay oo gaaladii oo dhan wada jibisay hadda dalku waa kuwa xalaalo marka waad xukumaysaa waa nabadda wuxuu sameeyey ciidamadiisii ayuu boqolkiiba ka badan 50 ayuu iska yiri ordaya ku noqday beerihiina iyo meeraha ka timaadeen oo ay ka mid ahaayeen 900 oo askari oo Osmaaniyiin ah yani Osmaaniyiintu dhinacyada midkan artillery ay ka caawinayeen hubkay ka caawinayeen dib oo Yemeniyiin baa ku jira ciidamadiisii wuxuu waa nabiga iska taga oo anagu dawaan guulaystay oo nabaday taa waxay tusaysaa waa waxa uu sameeyay masalan Said Maxamed oo kale markii uu dagaalada ku jiray heshiis baa la iskala galaya ilig waxoranaya waayaheed waan heshiiyey marka dambena markii walaaladiisii oo dhan la burburiyay oo 1905 ilaa 8 ayuu soo kacay oo waan gardaraayo hadan dagaal qaadaya waa goor awoodii ay yaraatay waxa kamid ah Siyaad Barre markuu la dagaalamay Abyssinia oo guulaystay oo sidii Axmed Gurey ku dhow sameeyay laakiin se wuxuu kala garan waayay yani duruufaha siyaasiga anigu waxaan arkaa had iyo jeer
yani sideedaba yani guul military lama keeni karo haddaysan barbar soconin guul siyaasadeed. Soomaalidu ceebaha aanu leenahay waxa weeye waan dagaalanaa, dadka dhalinyaradayna dagaalamo aad bay maaragtay efficient u yihiin, guul bay keenaan, laakiinse waxaa fashiliya siyaasad xumo dadka oo madaxda ayaa keena. Marka Axmed Gurey Soomaaliyadiisa anigu kolleyba markaan isiri go-aankan markuu gaaray baan isiri ninka kan waa Soomaali. laakiin Dr. Maxamed Xasan Cali oo ah aqoon-yahan Itoobiya u dhashay waxa uu hayaa taariikhtaasi ka duwan. waxa uu leeyahay Axmed Garaan waa sida Itoobiya looga yaqaanee waxa uu ahaa nin ka soo jeeda agagaarka Harar kana dhashay mid ka mid ah qabaa'ilada halkaasi dega. Definitely Somali tradition says he was Somali, and Habasha tradition also says he was a Somali. taariikhda Soomaalidu waxay leedahay waxa waa Soomaali, sidoo kale taariikhda Amxaaradu waxay dhahdaa waa Soomaali, laakiin buugga caanka ah ee Fathul Habasha oo ka hadlayay qabsashadii Abyssinia kaasoo uu qoray nin Yemeni Carab ah oo aqoon-yahana oo Imaam Axmed Gurey la socday dhowr sano, waxa uu ku tilmaamayaa in isagii qoyskiisu ay ka soo jeedeen Harla. xilligaas walaashiis waxaa qabay nin hogaamiye caana oo Soomaali ahaa. isguursiguna wuu jiray. qabiilkiisu waa mid adag sababtoo ah xilligaas qabiilka aan hadda maskaxda ku haynaa ma jirin. waxaa dadka isku keenay waxa uu ahaa Islaamka. shaki kuma jiro in Soomaalidu ay qadiyadiisa garab istaageen, sidoo kale Hereriyiinta iyo Harlada ayaa garab taagnaa. Dr. Maxamed Xasan Cali waxa uu sharaxayaa kuwa ay yihiin dadka la yiraahdo Harla, halka ay degaan iyo meesha ay ku dambeeyeen. Tradition says once Harlas were very dominant people in the area. There are a number of structures in Harar region where I come from. taariikhdu waxay sheegaysaa in Harladu ay marahayeen dadka ugu awoodda weyn deegaanka. dhaqamo kala duwan ayaa ka jira gobolka Harar ee aan ka soo jeedo. dhaqan ahaan waxaa Harlada lagu tilmaamaa dad dhaadheer oo jirkoodu dhisan yahay. waa suurtagal in laga badbadinayay. waxaa hubaala inay ahaayeen dad beeraley ah, qaarkoodna reer guuraya. waxay ku noolayeen gobollada bartamaha 30 ilaa 40 kilomitir meel ka baxsan Harar. waxay isguursadeen Soomaalida, Oromada iyo Adarida, kadibna waxa ay ku dhex milmeen dadyowgaas aan hadda kuu sheegay. And gradually Harla identity was absorbed into various groups of people I have just met. haddaba meel kasta oo uu ka soo jeedayba Imaam Axmed Gurey waxay taariikhyahanadu isku raacsan yihiin in dagaalada uu waday ay ahaayeen kuwo wax weyn ka bedelay xiriirka diimaha iyo bulshooyinka Geeska Afrika. dagaaladaasi dhex maray Abyssinia iyo Imaam Axmed Gurey waxay reebeen saameyn xoog leh, saameyntaasi oo soo jiitantay sanado badan. waxaa fidinta diinta ay xooggeedu ku wareegtay dariiqooyin iyo jameecooyin ka soo baxay deegaano kala duwan oo ka mid ah geyiga Soomaalida. haddaba soo bixitaankii jameecooyinka iyo hawlihii dariiqooyinka ayaan ku eegi doonaa qaybta 3 ee taxanaha taariikhda Islaamka Geeska Afrika.